barnaamijka dooda khamiista caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa gacanka carabta ama Bershiya wuxuu wajahayaa xiisad iyo dagaal cusub ya su'aashaas ayaanu isweydiinaynaa iyadoo dagaal qabo uu ka dhex socdo Saudi Arabia iyo Iran haddana waxaa dalalka qaar ku yaala mandaqada iyagana ka holcaya dagaalo ay dalalkaasi baritaarayaan kooxo mabda'yadooda aaminsan oo u dagaalamaya toddobaadkan duqeymo lagu ekeeyay goobaha saliida laga soo saaray Sacuudiga ayaa dhaliyay jawi qarka loo saaran yahay dagaal Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa durbe eeda duqeymaha khasaaraha dhaliyay dusha ka saaray Iran way beenisay arrinkaasi inkastoo Xuutiyiinta Yemen ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi dalalka bariga dhexe ayaa haddaba iyagu ku kala qaybsan taageerada ay u hayaan dhinacyada ku hardamaya awoodda gobolka Saudi Arabia waxa isbahaysi iyo taxaaluf balala tahay dalalka Bahrain Masar Imaaraadka Carabta oo iyada ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin halka ay Iran iyaduna xulafo dhow la tahay oo ay isku jaal yihiin dalka Iraq sida aad ka arkaysaan khariirada halkan ku taala iyo sida uu bariga dhexe u kala qaybsan yahay haddaba waxaa jira dalal kale oo iyaguna ku yaala gobolkaasi oo ku kala qaybsan taageerada waxaana ka mid ah Yemen iyo Suuriya oo dagaal ay ka socdaan iyo Lebanon iyo Israa'iil oo iyadu aan dhanaba raacsanayn barnaamijkan haddaba aanu kaga doodayno arrimahaasi gacanka ka taagan waxaa martiigu ah Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta oo ila jooga stuudiyaha iyo aqoon-yahan Dr. Axmed Sheekh Maxamed Tiir oo isaguna stuudiyaha Nairobi soo fadhiya soo dhawo Dr. Axmed Tiir aad baan labadiinaba idin salaamaya haddii aynu barnaamijkeena guda gallo waxaan jecelahay inaan Axmed siiyo su'aasha hore oo isagu Nairobi jooga Dr. Axmed Tiir arrinkan imika taagan maxay kula tahay xaguu socda ma dagaal baa qarka loo saaran yahay sidee baad wuxuu durasaysaa sidee wax yihiin inkastoo hadda waqtigan asaga dhinac colaadad ay ka muuqato bariga dhexe guud ahaan haddana waxay badigiisa u badan tahay saan u malaynayo boolax gurdi iyo in murqaha la isu kuuso waayo waqtigan isaga ee waqti adduunka uu dagaal diyaar u yahay maaha gantaaladii maalin dhaweyd afar cisho ka hore ku dhacay baqiiq iyo magaceedii Xoreys ayaa waxay joojiyeen 58% shidaalkii Sacuudiga ka soo baxayo adduunka meesha ugu badan oo shidaal soo saartay ahayd marka hadduu dagaal weyn uu ka qarxa waxaad sugaysaa in uu shidaalkaasoo dhan joogsado marka arrintaas waa arrin aad u adag inuu hadda dagaal la galo tan labaad waxa weeye ninkan hadda Trump marna gacanta wuxuu ku qabanayaa carrot marna stick waxay dhahaan labadii ayuu ku kala hayaan laakiin nin sidiisa dagaal jecel ma oo ballantii oo tabcasu hayaba leedahay boolax gurdam ku fiican yahay ma ogaya dagaalada nin aad dagaal ku kala ma aha waa nin ganacsada ah waan gartay dagaalka marka hadii uu ayada ay ku soo socoto doorasho sanadka soo socoto hadii bazinka iyo shidaalka cirka isku shareero oo dhaqaalaha adduunka uu soo gaaro dhaawac weyn noqonaya Dr. Axmed Tiir waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xadaan ay la jooga doctorku waxa uu inoo odorasaya wuxuu yiri aniga lama hayn dagaal dhacayo laakiin hanjabaado waaweyn baynu maqlaynaa madaxweynaha Mareykanka ka soo baxaya dawladda Mareykankuna waa dawlad awood ballaaran oo military leh dagaaladuna waxa ku dhacay si sibiqa maxay adiga kula tahay waan ku raacsanahay doctorka kaliya horta waa inaynu faahno Sacuudiga wuxuu baa dagaal la gali kara Mareykanna Trump baa madaxweyne u ah bilihii ugu dambeeyay markaad eegto inuu hadlo un mooyaane nin u diyaar ma ah inuu dagaal galo ninkii ugu muhiimsanaa ee u qaabilsanaa amniga waa kii casilay ee waliba ahaa nin ku adag Iran maalintii la doortayna ahaa ninkii yidhi waa in Iran dagaal lagu bilaabo doorkii hore ee Bushna uu ahaa waxa weeyaan United Nations uu fadhiyayna waa ninkii Iraq ka dambeeyay baa la yidhi dagaalkeeda laakiin sababta aanu Trump dagaalka u galayn waxa weeyaan doorashadii baa soo dhow marka nolosha amba waxa weeyaan siyaasadda ka taagan Mareykankana markastaba dabadda ayaa xukunta haddii marka dagaal uu isku qaado Trump waxay u eegtay 20% inuu ka helo doorashada markaasi Mareykanka uu ku guuleysan waayo waan gartay Cabdiraxmaan Daadi ku soo celiyo Mareykanka iyo Sacuudiga ka hadalay Iran laftigeedu iyo xulafo u haysataa iyadu cunaqabateyn baa inta saareed xaaladaheedu iska adag iyada laftigeedu dagaal ma ka bixi karaysaa Iran horey uga diyaar garowday inay dagaal gali karto anytime waxaana ku cadeynaya maanta Iran kaliya dagaal ma galayso
waxay leedahay dad fara badan oo ay samaysatay iyado oon dowladaba ahayn oo ka muhiimsan dowladaha oo waxa weeyaan xulafaa oo maleeshiyaada hadday tahay ururka xamaas hadday tahay ururka xisbullah oo lubnaan jooga iyo ururka xamaas oo jooga iyo jihaad oo jooga filistiin hadday tahay ururka xuuthiyiinta oo ilaa iyo hadda waxa weeyaan ku noqday waxa weeyaan maxay laf dhuun gashay Sacuudiga iyo oo waliba ugu muhiimsan Ciraaq oo laga yaabo in dadka waxa weeyaan ba dadka ugu badan ee shacabka iyo ciidanka jooga ee xashdu shacbiga la yiraahdo 125,000 oo ciidana oo hubka oo dhan u dhan yahay ayaa farfadhiyo Iran ka amar qaadan dowladda Ciraaq waan gartay Iran halkaas xulafay ku leedahay tiri Dr. Ahmed Tiir waxaad ka warantaa waad aragtay Sacuudiga Imaaraadka xulafaha waxaad moodaa in halkaas kala furnaansho imanayso laakiin Sacuudigu wali wuxuu leeyahay xulafo weyn dalka Masar oo dalka ay Carabta ugu weynaa iyo dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka oo kale marka sidee baad u aragtaa xulafada Sacuudigu leeyahay tii Iran waa kan xadaana inoo sheegeen Sacuudigu waxaad moodaa in uu luminayo xulafadiisii laba dhinacba haddii laga fiiriyo kow dhinaca sunnada ururada sunnada ee nidaamsan wax ku tari lahaa ee wax ka qaban lahaa aad buu u lumiyaa qaarkood xabsiye ayay ku jiraan madaxdoodii iyo odayaashoodii waa midda labaad ee dunida muslimka guud ahaan Sacuudiga wuxuu leeyahay awood akhlaaqi ama adabi ah oo ah inuu xaramkii uu ku yaalo marka inuu xoolo badan ilaahay u siiyay labadaaba uu leeyahay laakiin waxaad moodaa dawladihii Carabta ee garab istaagi lahaa inay horaan ay ka dhaceen xariga dhamaantood marka Masar ayada ayaa isku mashquulsan tabar ma hayso oo hadda waxay Sacuudiga ku tari karto weyn ma jiraan tan kale dawladahan hadda magaceedii Imaaraadka waxa lagu yiri haddaad isdhaqaajiso xuduudda Iran ay ku taala iyada khatar ku jirto qatar colaada ka socoto Bahrain waa jasiiradan waxba u tari karin Pakistan dagaalka Iran inay gasho ayay diiday dagaalkii xuutiyiinta inay gasho ayay diinto diyaar ma ahayn banaanka aan ka dhaxgalo Sacuudiga waxaad moodaa inaad ku soo ooday laakiin in badan soo ma maqlo wadamo muslim oo calanka loo lulo bariga dhaxa oo sidii Saddam ama Qadaafi ama la yiraahdo waxbay sameynayaan oo aakhirkana aad aragto waxa soo gaara ma laga yaabaa Iran inaan caga badan ku taagnayn oo sidii aad moodis arrimo aan ahayn maayo Iran caga badan kuma taagno laakiin Iran qadiyadeeda waa minted Iran hadda adduunka sidaa luma dhoofiso dhaqaalaheeda dhulku ku yaala xoog wada ay leedahay male hadduu Mareykanka weerar ku qaado Iran hadda ma istaagi karto laakiin waxay uga fiican tahay Sacuudiga Iran xulafadeeda ayay haysataa xulafadeeda ma lumiso xulafadeeda badigana waa gacmaha ay ku leedahay wadamada Carabta aad baad u mahadsantahay Dr. Ahmed Tiir hadana ka waran khaliijka wad aragtay ama gacanka xaqii shidaalkii adduunka shidaalkiisa yaala waxa yaala nabadgelyada adduunka oo dhan ba ku xiran marka sidee bay kula tahay caalamku ma ka gurmanaya inaan halkaasi dab ka holcin cusub horta waan ku khilaafsanahay doctorka in doorashada hadayna dhaafto oo inta ay cunaqabateen muumka ku bilaabay Trump laga yaabaa in saacadaha nagu soo socday marka inuu cadeeyo Mareykanku laakiin hadduu doorashada dib ugu soo noqdo waxa 100% dadka oo dhan ay isku qirsan yihiin inuu dagaal qaadayo imanka wuxuu buu bilaabayaa sanadaha uga haray doorashada siday leeyihiin inuu awood saaro sidii Ciraaq inuu weeqo dhaqaalaha xagga wax way Iran tay ka dagaalamaysa Iran ee isla fahmi laayna waa intaas markasta ay dagaalka u dagaalamayso tan waxa timi waxa weeyaan dhaqaalaha hadii dhaqaalaha loo soo noqdo waxa meesha ilaashanaya Europe iyo Mareykan hadii Europe ay raacdo oo doorkan imanka wali khubara ayaa imanaysa Sacuudiga hadii ay ku raacaan Ingiriiska iyo Faransiiska hadii ku raacaan in hubkani uu ka yimi waqooyiga sidoo sheegay la taliya waxaan jeedaa afhayeenka wasaaradda difaaca ee waxa weeyaan Turki uu sheegay hadii ay ku raacaan waqooyiga macnuhu waxa weeyaan amba waa Ciraaq amba waa Iran hadii ay ku raacaan marka waxa weeyaan ay u diyaar garoobaan iyaguna dagaal way ma doonayaan in waxa weeyaan dhaqaalahaas iyo shidaalkaas nolosha Mareykanka iyo nolosha Yurub weeqaya waxaad ogaataa warshadaha oo dhan ba istaagaya wali Sacuudiga waxa weeyaan petrolkiisii waxa weeyaan ismoo dhiman laakiin hadduu sidan ku socdo 3 bilood 4 bilood 5 bilood hadduu ku socdo dhammaan warshadaha waaweyn oo dhan ba istaagay waan gartay Dr. Ahmed Tiir waxaan ku siinayaa su'aasha ugu dambeysay waad ogta geeska Afrika iyo Soomaaliduba way ku dhow yihiin khaliijka iyo gacanka haddii wax ka dhacaan saameyn intee leeg bay Soomaali ahaan iyo geeska Afrika ahaan iyo bariga Afrikaba haddii khaliijku qarxo ay ku yeelanaysaa طبعا أنا خليج كأد بان نقول حرنا حق دقالها أنا وحكون دعانا الصومالي ذا دبوين أيها إيمانيو
ganacsigeena ayaa ku xiran xagga shaqaalaha Soomaalida aad u badan joogto jaaliyada badan oo xagga joogto lacagta laga soo xawilo lacagta adag ah xoolaha loo dhoofiyo ganacsiga kale Imaaraadka aanu leenahay marka khaliijka oo wadamada aan isugu xirannahay xagga dhaqaalaha Soomaaliya hadaanu nahay markasta marka khaliijka uu dhib ku yimaado si toos ayuu noo taabanaya anaga Soomaaliya hadaanu nahay marka saas daraadeeda khaliijka dhibkiisa waa dhib Soomaali oo guud ahaan ah marna kama baxsanayna xagga hadaad u fiirsato geopoliticska dhinacan kala badda ay naga saaran yihiin waxa laga yaabaa markaas in loo baahdo in la isticmaalo inaga garoomadeena iyo mataaraadkeena si meelaha qaar loo duqeeyo inaga marka duqeynta weyn soo gaariyaan Dr. Axmed Tiir oo Nairobi naga soo biiray aad baan kugu mahad celinaya waqtiga nagu yaraaday inaad nagala soo qayb gashay Cabdiraxmaan Xadaana oo isaguna ah faaleeyaha arrimaha wadamada Carabta oo nagala soo qayb galay barnaamijka aad baa u mahadsantihiin dhamaantiin daawadayaashuna aad bay u mahadsan yihiin intaasi ayaan caaw ku soo gabagabeynaa barnaamijkeygii caaw iyo caalamka dhamaantiin waa mahadsantihiin intaanu berri kulmayno hadduu eebba idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo